nima aabiis ugu xoog la aabihiyo waayeela inta lugta ka qabto tumay oo garaacay labada sarrado ka tumay waxa leeyahay cadaabta aakhira aan lagu la sugayn waxa u horeeya caasi waalidnimo waxa u yimiday waa xanuunsaday sakaraad oo naqday waxa leeyahay nin sheekhaha loo yimid waxa leeyahay hebel sakaraad waaya kaala yaasiinka ku aqri ma ku aqrinayo mana dhimanayo war maxaa ka wadaa ma yawr aan ma u tagaa ninkaas waa ka diidiyay waa iska joogiyay waa raysta ninkii markaas ka dibaa wiilkiisa inta qabsaday oo lugta ka jiido tumay kadib haddana loo yimid asagoo waa sakaraad la leeyahay haddaan yaasiimina hawr aba xaqa ku jiray idoon xaqa laga jaazin ma dhimanayno baari waalid haddaad naqatana irqigaada xataa waa laga awlaadeeda xataa baari ahaanaysa caasi haddaad naqatana sinji caasiya oon gabartiisa la iska diido waagii hore waa la yaqiinay dadka caasi sinji ah ku jiro gabirtaada ma la sii jirin maxaa jira caasi u dhalaa marka adduunka lagu la ciqaabaa waalidka caasinimadiisa waxa sayid Umar iyo sayid Ali yaa xajka dawaafeen sacyiga waa taqaaniin dhibka ka batay haddaa 7 jeer dhamaysood xagga tagto oo haddana dawaaf ka samayso meel aad salka dhigataad u baahantaa nafta ku qabanaysa markay sacyigii dawaaf ka dhamaysteen yaa waxaa soo gala nin hooyadiis xambaarsan ee la dawaafay sacyigii xoog lahay oo kaliga ku dhibay oo hooyo xambaarsan yahay markaasoo bayna Safa wal Marwa oo saas u dhamayna waana dheertaha meesha Ali ibn Abi Talib wuxuu Umarow waa ku naqayna hawr dawaafka hadda ilaahay raxmadiisu soo degtay ninkan hooyadiis dawaafinaya ayaa raxmadii soo degtay nakeen aan ninkan la dawaafnay markaasay mar labaad dawaafka ku naqdeen ninkan hooyadiis xambaarsan raxmadda soo degaysa darteed ayay xajku ugu noqdeen labada sayid waana sayidul ummadan khulafaa ur-raashidiinti Ali ibn Abi Talib sayfullahi al-masluul diintaanu seefta Ali ku qaan gaarta ilaahay yiri iyo Umar ibn al-Khattab oo ninkii nabiga gadaashiis cadaaladda lagu magacaabay labadooda ku noqdeen nin hooyadiis xambaarsan haday arkeen yani waa baari waalidnimadu qaymaha ay leedahay waxa leeyahay cadaabta aakhira aan lagu la sugayn waxa u horeeya caasi waalidnimo waxaad aabaha ku samayso adoon lagugu samayno awlaad kugu siinmayn ma dhimanaysid waa lagu la sugaa intay kaaga samaynayaan baarinimo haddaad u samaysana adduunkaad ku guranee manaaficeedkeeda janno ka sukow haddii labada halkood agtaada ku duqoobo ku waayeeloobo ama labaduba kugu ag waayeeloobaan falaa taqul lahumma uffi warkaaga ma fiicna isku dhihin waa maandhowday ayaamahan warkaaga aabo looma adkaysto hadhihin walaa tanharhuma waxaas ka joogna hadhihin asliga ku dhihi kara waxaas ka joog adigu ma dhihi kartid hooyada iyo aabaha raxmadda ayaa ku jirta naxariista waalidkiis ninkuu naxariistana awlaadiisa u naxariisanaysa birru tabirru abnaa'ukum rasuulku wuxuu leeyahay baari u naqo waalidka awlaadaada baari alla kaaga dhiga marka wa bil waalidayni ihsaanan wa bidil qurba haddana ihsaanka waxa lagaaga rabaa qofka qaraaba kula ah dadka kula qaraabada oo riximkaaga oo walaalkaaga oo ina adeerkaaha ina aayadaaha ina eedadaaha ina abtigaa asal ya faracaaga dadkaasa haddana ihsaankooda laga rabaa wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sadaqatun cala alfuqara fuqarada iyo masaakiinta sadaqadaha siiso sadaqa waaye
صدقات قريب ككون وسي سنة صدقة وصلة وانا صدقة وانا قرابة حريرين لبا أجر واي قرابة نمدي الصدقة دي أجر كذا نوال هاي walaalkaa oo qariibkaaga ahoo kuu baahan oo waxsiintaada u baahanna waa qaraabo xariirin fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqadicuu arxaamakum hal casaytum maxaad mudnaan laheedeen in tawallaytum haddaad jeesatiin oo nabiga majliskiisa ka kala tagtiin وتقدعوا أرحامكم أنت عن النبي قال لفديدين وحكومة ديليسي نكاد علماء لفديدين وروناهيسي لكن هدي لبحوا وإلهي يأدوا اسكو هرتين هدات وتقدعوا أن تفسدوا في الأرض دولك هدات فساهات كسميسين مع أملينيسي وتقدعوا أرحامكم يا مركز قرابدين أدقويسين ندكو قريب كهاي رحمة دي أو كاغال كقول هاي حق كاغال هاي الكواي هدي أن تفسدوا في فإن عصيتم إن توليتم هداد قرآنك كعمل فالكيس يسنة كدغن كذا كجيستين ولا تفسير شيء هو تقدعوا أرحامكم قلابدين أدقويسين رحم وحاكم ذا نكاد جبرتي سقبته هذا قاد جبروا أبكوا يها قبتت hooyada gabarteeda aad qabto abkowga aad gabarta aad qabto abkowga kale oo abtiga oo gabarta u waalidka qaraabada dham oo zawjadaada qaraabadeeda waa raximku iyo ninkaaga qaraabadiisu waa isku mid labada qaybood marka waxay kugu leeyihiin karam waxay kugu leeyihiin xariirin والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل إلى وحور وحال أمانة يا أولي الألباب نوحاء كوا يصلون إلى حريرين آيان أو وحي مضنايان سين آيان أو قوشي أباه نايان أفدين آيان أو مرتقات كي أباه نايان سين آيان كواس أيا أهل العقل ويخشون ربهم إن كان لو قدبن وحال إرادا ماشاد كسو جيدو هي ماشاد كسي جيدا لرا رحم ماشاد كسو جيدو ما تغاني ماشاد كسو جيدو واهر هويدا أهل كيدي واي هذا كسو جيدو كدلتي أي كدلين ماشاد كسي جيدنا وزوجدادي أهل كيدي labadaas waa la dhowraa meeshad ka soo jeeda waa la dhowraa meeshad hadda ku jeedana wa saaxibi bil jambi yaa la yiraahdaa qofka jiifka kugula saaxibka ah qaraabada u horeeya waanu fadli badan tahay waana ajir badan tahay iduna